haddaba waxaynu imika u gudagali doonaa habka loo xareysanayo waxbarashada firiiga amba scholarshipka dalka ruushka website-kan wasaaradda waxbarashada ee dalka ruushka laga leeyahay. waxaynu toos u tagi doonaa online application ayaynu ku dhufan doonaa. waxa uu inoo soo saarayaa pagekan amba wajahadan ayaa inoo soo saarayaa. haddii aad hore ugu lahayd account website-kan emailka iyo passwordkeed halkan gelinaysaa, kadib sign in ayaad odhanaysaa. se haddii aanad lahayn account aanad ku lahayn website-kan, waxaad tegaysaa create account. waxaad halkan gelinaysaa magacaagii ugu dambeeyey. tusaale maxamed baynu gelinay, magaciisii koobaadna waxa aynu ka dhigaynaa cali. emailkiisiina waxa aynu ka dhigaynaa tusaale ahaan emailkan ayaynu ka dhigi. sidoo kale password ayaynu samaysanaynaa accountkeena. isla passwordkii aad samaysatay ayaad ku celinaysaa. markaad magacii awowga aad halkaa gelisid, last namekanaad magacaagii koobaad aad gelisid ee magacaagii ahaa. sidoo kale emailkii aad accountka ku samaysanaysay, passwordna aad u samaysatid. sidoo kalena aad passwordkii ku celisid, tigtaad halkaa saaraysaa ee agree baad odhanaysaa, kadibna sign up. waxa uu ku yidhi markaa sign up tidhi, wuxuu ku yidhi thank you for registration, confirmation request was sent to your email. wuxuu ku yidhi message ayaa lagugu soo diray gmailka amba emailka aad ku samaysatay accountkan. waxaynu toos u tagaynaa inta aynaan u gudagelin accountkeena. waxaan horta tegaynaa emailkeena si aynu usoo confirm garayno emailka ay noo soo direen. hadda waxa aynu tagnay gmailkeenii si aynu u eegno messageka ay noo soo direen. waa ka ugu sarreeya. emailkii ay noo soo direen baynu gudihiisa u galnay, kadibna waxaynu ku dhufanaynaa please follow this link. halkaa uu ku qoran yahay ayaynu ku dhufanaynaa, linkigaas ayaynu ku dhufanaynaa. kadibna toos ayaa uu inoo geeyey. waa kaa user registration has confirmed. waad aqbashay buu ku yidhi emailkii ay kusoo direen. kadibna waxaad gelaysaa accountkaagii. hadda waad geli kartaa. gmailkii aad ku samaystay, passwordkii aad ku samaystay aad ku gelaysaa. waa kaa my accountkeeni ayaa toos ayaa uu inoo keenay accountkeeni. haddaba waxa uu ku leeyahay halkan wax dad idin dhexaynaya idinkiiyo jaamacadaha ku yaala dalka ruushka haba yaraatee ma jirayo. waa in aad toos u buuxisid formamkan xagga hoose ku qoran. application formkan toos intaad u buuxiso ayaad u diraysaa. sidoo kale waxay kugu soo jawaabayaan ilaa 10 cisho gudahood ay kugu soo jawaabayaan jaamacadahaasi. sidoo kale waxaa jaamacad walbaad kala xidhiidhi kartaa emailkeeda adigoo halkan ka eegaya, adigoo halkan ku dhufanaya. haddaba halkan formkan waxaad ku buuxbuuxin kartaa English amba luqadda ruushka, markaa kolba taa taqaano. waxaynu guda geli doonaa imka sida loo buuxbuuxinayo application formka. waxaynu ka horeynaynaa personal detailska. haatan magacii awgeed oo inoo qoran yahay surnamekii iyo magaceenii cali. middle name oo magaca aabaha ah ayaad gelinaysaa. tusaale waxaan anigu gelinayaa xasan.
taariikhda dhalashadana halka ardaygu yaanu ku wareerin marka tusaale ahaan uu doonayo in uu 1996 amba 97 wixii ka hooseeya uu doorto ma jirto meel uu saa hoos u soo jiidaa ma jirto marka halkan ayaa uu ka dooran karaa 1995 oo ka 1995 uu toos ku geeyey sidoo kalena bisha ayaad dooranaysaa March 8 gender ma male baa tahay mise female ma dhadig mise lab baan odhanayaa citizenship dhalashada haysato ayaad ka dooranaysaa halkan Soomaaliya halkana nambarkaaga ayaad gelinaysaa halkana level of education you already have waxa weeyaan waxbarashada aad haatan waxbarashadaadii ugu dambeysay ee sidatid tusaale ahaan haddii aad secondary ka baxday wayna secondary aad tiraahdaa tusaale ahaan secondary school certificate haddii aad bachelor degree tahay bachelor degree haddii aad master tahayna master kolba shahaadadii ugu dambeeyay aad sidatay waxbarashadaada ayaad ka dooranaysaa imka tusaale bachelor degree baan dooranay country of graduationna dalkii aad ka qalin jabisay Soomaaliya halka ka badh Soomaaliya ayaan ka dooranay haddaba name of institution waa jaamacaddii aad ka baxday amba iskuulkii aad ka baxday ayaad halka magaciisa ku qoraysaa Armas University tusaale year of graduation sanadii aad ka baxday waxbarashadan aad dhammaystiratay tusaale ahaan bachelor degree-gan waxaan oran karaa 2015 amba 2015 first language luqadaada koobaad waa maxay waa Soomaali baad odhanaysaa amba waxa weeyaan waa ta dhalashadaada luqadda Russian-ka saas ku tiin haddii aad haba yaraataan wax aad ka taqaana aanay jirin baad dooranaysaa Russian language certificate-na luqadda Ruushka xag shahaadada ayaad ka sidataa inta midkee markaa not specified ka iska daa English language luqadda Englishka ama beginner qof bilow ayaa isku tii elementary intermediate kuwa advanced baan ka dooranay tusaale shahaadad ka sidatid haddii aanad inta midkood aanad ka sidan waad iska dhaafaysaa waa shahaado international ah luqadaha kale aad taqaano oo tusaale Spanish baan odhanaya halkana my aspiration waxaad ku buuxinaysaa qaybtan waxbarashadaas heerka waxbarasho ee aad doonayso inaad soo barato tusaalaha master degree baan doonaya inaad soo barto additional programs halkana waxaad ka dooranaysaa programka aad soo baranayso pre-bachelor program waa bachelor degree waa degree aan dhammaystirnayn sidoo kale waa master aan dhammaystirnayn ba luqadda Russian-ka ayaad soo baranaysaa ma short term and summer courses ma courseska summerki la qaato ayaad soo baranaysaa marka adar baad odhanaysaa maadaama aad soo qaadanayso master dhammaystiran amba degree dhammaystiran adar ayaad odhanaysaa year of applying sanadee ayaad xaraynaysaa 2020ga and form of study habkaad wax usoo baranayso full time weeyaan ayaan soo baray mise part time mise distance learning mise extra muller marka aad full time baan soo baranayaa fiilka aad doonaysa inaad soo baratid mid baynu iska dooranaynaa haddaba halkan University of Choice waxa weeyaan waa jaamacadaha aad soo eg bilowga intaanad application diiwaangeli iyo application kan aanad soo buuxbuuxin waxaa ka horeeya in aad soo baarato sidoo kale aad soo search garayso jaamacadda
programka aad doonayso inaad xaraysato iyo jaamacadda bixinaysaa. markaa 6 jaamacadood ayaad soo raadsanaysaa oo wanaagsan. kadib 6daa jaamacadood ayaad halkan ka dooranaysaa. kow tusaale 2 3 4 5 iyo 6. 6daa jaamacadood baynu hadda isdiiwaangelinay. additional information halkan waxaad kaga sheekeynaysaa sidoo kale aad ku xusaysaa programka aad xaraysanayso magaciisa. sidoo kale waxaad halkan kaga sheekeynaysaa guulihii aad gaadhay waqtigii waxbarashadaada. tusaale waxaynu halkan kusoo koobiyeysanay arday ka mid ah ardayda xaraysatay waxbarashada dalka ruushka. qoraal halkan ku qoray sanadii hore wuxuu ku leeyahay halkan I had a bachelor degree of computer science waxaana haysta bachelor degree computer science jaamacadda Armas ka qaatay. I want to apply management and info communication waxaan xaraysanaya programka magaciisa la yidhaahdo management of info communication and intelligence systems at this university. jaamacadahan 6dan jaamacadood ayaan doortay. waxyaabihii guulihiisii uu gaadho waxaa ka mid ahaa inuu noqday qofkii ardaygii labaad ee jaamacaddiisa ugu sarreeyay, sidoo kalena ku guuleystay abaalmarin jaamacaddiisa uu ka helay. marka intaas ayaa uu ardaygaasi ku qoray qeybtan. inta aanad gudbin waad iska jeegaraynaysaa in uu application formkaagu ku dhammaystiran yahay. kadibna haddii aad doonayso inaanad imika gudbin ood kusoo noqotid mar dambe safe ayaad odhanaysaa. haddii kalena waxaad odhanaysaa submit ood gudbinaysaa. haddaba markaad submit tidhi waxaad eegaysaa 10 cisho gudahood ayaad ku eegaysaa in ay jaamacadihii 6dii jaamacadood ee aad xaraysatay ay kusoo jawaabeen. markaa account-kaaga ayaad mar walba ka warhaynaysaa adigoo account-kaaga dib u gelaya. kadibna halka ugu hooseysa submit iyo safe halka ka hooseysa ayaad hoos u soo wadaysaa. bartan ayaa ay kugu soo jawaabeen jaamacadihii aad xaraysatay. kani waa mid ka mid ah ardaydii sanadii hore xaraystay qaabkii loogu soo jawaabay. reply from this university from the university jaamacaddan ayaa usoo jawaabtay. sidoo kale jaamacaddan kale ayaa usoo jawaabtay. marka dhanka buluuga wixii ka hooseeya ayaa ay jaamacaduhu ugu soo jawaabayeen oo kuwa marka mar walba 10kaa cisho gudahood waxaad kaga warhaynaysaa account-kaaga inay kusoo jawaabeen jaamacadihii aad xaraysatay. kaasina wuxuu ahaa habka loo xaraysto waxbarashada scholarshipka ee dalka ruushka. insha allah waxaan idin rajeynayaa in aydu si fiican u fahanteen, sidoo kalena aydu si wanaagsan u xaraysan doontaan. waxaana sidoo kale idin rajeynayaa in aad ku guuleysataan waxbarashadan scholarshipka ee dalka ruushka. guul ayaan idin rajeynayaa mar walba ardayda soomaaliyeed. aad baan idin salaaminaa. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.